السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa insha Allah tacaala inaan mowduuceenan kaga hadalno khaladaad dhacay oo sababay khasaare aad u weyn oo dhaqaale badan oo ku baxay. Lacagta ku baxday qaladaadka dhacay si loo hagaajiyana ay tahay malaayiin dollar. Markaad maqasho qaladaadka dhacayna aad adigu lafahantaada dib isugu noqoto waxyaabihii ka khasaaray markaad soo xasuusto aad oranayso aad kaba soo qaadayso inaan waxba ka khasaarin badde. Markaad aragto qaladka dhacay iyo khasaaruhu keenay intuu leeyahay. Haddaba haddii weli maskaxdaada ka sii dhex guuxayso maalin telefoon qaaliyo ka jabay ama qaladaad kale oo ka dhacay khasaarihii ka soo gaadhay, waa hubaal inaad ilaabayso markaad maqasho waxaan ka sheekeynayo. haddaba intaanaynu gudagelin muuqaalkeena fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe garee, like tana ka ilaabin haddaad ka hesho muuqaalkan una share garee asxaabtaada cidda aad doonaysa in ay ka faa'iidaysato. haddaba haynu gudagelno muuqaalkeena. sanadkii 2014 ayaa laga daahfuray dhisme magaalada London ee wadanka Ingiriiska. Dhismahan dhererkiisa waxaa lagu qiyaasay 160 mitir. Magaciisana waxaa la yiraahdaa Al-Walkie Talkie. Sababta loogu bixiyay magacan uu yahay inuu u eg yahay raadiyowga. laakiin waxa haysatay dhismahaas mushkilad aad u weyn. mushkiladaas oo ah inuu soo celinay falaadhaha qoraxda kuna soo celinayay wadada isaga hoos marta. taasina waxa ay keentay mushkilad aad u weyn waxaana ay sababtay inuu temperature-kii wadadaas uu aad u kaco heer uu gaadho mararka qaar ilaa 60 digrii oo ay meeshna sida moofada noqoto kuleyl awgeed. waxaana dhacday in gaadhi la hoos dhigay dhismahaas loogu yimaaday isagoo qaybaha qaar ay dhalaaleen. taasna ay sababtay temperature-ka aad u sarreeya ee dhismaha hoostiisa. haddaba si loo xaliyo mushkiladaas waxa ay ku kaliftay dadkii mulkiilayaasha ahaa ee fooqa iska lahaa in ay ku xidhaan qayb kale oo madow muraayadaha fooqa ee iftiinka soo celinaya isla markaana uu temperature-ku sidiisii hore ugu noqdo. waxaana mar labaad dib ugu baxday in la hagaajiyo fooqaas lacag gaadhaysa 12 milyan oo dollar. sanadkii 2009 waxa ay go'aamisay dowladda Faransiisku in ay horumariso tareenada wadankeega oo ay ku kharash garayso lacag gaadhaysa 20 bilyan oo dollar isla markaana ay samayso koox tareen ah oo gaadhaya 20,000 oo tareen. haddaba mashruuca waxa ay ku wareejisay laba shirkadood oo kala madax bannaan, halkaasoo shirkad loo xil saaray in ay hagaajiso wadooyinka ay tareenadaas mari lahaayeen, mid kalena loo xil saaray in ay tareenada iyadu soo samayso. haddaba waxay ahayd in shirkadda wadada tareenka samaynaysa ay siiso qiyaasta shirkadda kale ee tareenada soo samaynaysa iyadu. laakiin waxa dhacay qalad yar oo aad u basiida laakiin khasaarahaas oo dhan sababay. kaas oo ah inay hore u sii jireen wadooyin la isticmaali jiray tareenadu mari jireen berigii hore imikana qaar cusub la sameynayo. haddaba waxa kala weynaaday wadooyinkii hore markii hore la isticmaali jiray iyo kuwan dambe imika la sameynayo oo kuwan dambe imika la sameynayo ayaa 20 senti ka weyn kuwii hore, halkay ahayd shirkadan wadooyinka loo xil saaray inay isleekaysiiso wadooyinkii hore u jiray iyo kuwan dambe imika la sameynayo ayay kala weynaysiisay. shirkadii labaad tareenadna waxay qaadatay qiyaastii labaad oo ay tareenadeeda ku soo cabirtay isla markaana ay soo leekaysiisay. haddaba sheekadu waxay qaldantay markii 2013 tareenadii la dhammaystiray ee ay diyaar noqdeen si ay u shaqeeyaan ayaa waxa soo baxday in wadooyinka qaar ay ka yihiin qiyaasta wadada tareenka loogu talagalay ee uu mari lahaa. wadooyinkaasna 15% bay ka yihiin wadooyinka uu tareenku maro ee wadanka ku yaala. markii dambena xalku waxa uu noqday in wadooyinka la iswada leekaysiiyo oo kuwaas ka yar qiyaasta tareenka in dib loogu celiyo oo dib loo dhiso. waxaana ku baxay in dib loo hagaajiyo lacag lagu qiyaaso 68 milyan oo dollar. imika waad dareemi kartaa qorshe xumadu khasaaraha ay leedahay baan filayaa. intaanaynu qodobkeenan kala gudagelin horta waa macquul in haddii dowlad amba shirkad weyn ay la soo gudboonaato khasaare dhaqaale way ka soo kaban kartaa baan odhan karnaa waayo waa macquul taasi. laakiin haddii uu qof keliya balaayiin lacaga uu khasaaro amba malaayiin aduu ugu yaraan waad dareemi kartaa qofka waxa haysta dee, waayo haddii $100 kaa lumaan ayaaba adag saad uga sabirtaa. haddii ay malaayiin kaa halaabaanna dee hadalkeyga badda. haddaba nin wadanka Britain-ka u dhashay oo magaciisa la yiraahdo James Howell ayaa waxa uu iibsaday waxa la yiraahdo Bitcoin-ka taariikhdu markay ahayd 2013. Bitcoin-kana waad maqasheen ma filayo horaad xog uga haysaa. haddii kalena haddaan sharax yar oo kooban ka bixiyo horta Bitcoin-ku ma aha lacag sida cash oo kale amba dollarka oo kale la taaban karayo, laakiin waxa weeyaan lacag hab digital ah amba si electronic oo kale loo isticmaali karayo. tusaale ahaan saadka amba dahabka haddaan soo qaadano laakiin way ka qaalisan tahay iyaga. waxa kale oo kaga duwan tahay saadkii dahabka Bitcoin-ku ma laha server gaar ah oo u cayman kaasoo sheegi kara maxay ahayd qofkan intuu leeyahay iyo qofkan kale intuu leeyahay oo lacagta qof walba intuu haysto laga ogaan karayo. laakiin waxa weeyaan wax computer-kaaga ku kaydsan oo markaad soo iibsato ayaa hard disk-ka computer-kaaga ay ku gelaysaa adigoo kaliya taan arki karaya intaad haysato
kombiyuutarkaagana way kugu kaydsanaanaysaa. Haddaba ninkan la yidhaahdo James Howell wuxuu soo iibsaday 7,500 oo xabo Bitcoin ah, markaana qiimaha Bitcoin-ku aad buu u jabnaayo, qiimo badanba ma lahayn oo sababta awgeed buu iibsaday. Laakiin iminka qiimaheegu aad buu u kacay, waxa weeyaan 135 milyan oo dollar. Muddo kadib ayaa waxa uu damcay James inuu iska bedelo kombiyuutarkiisa oo mid kale soo iibsado. Markuu soo iibsadayna kombiyuutarkiisii hore intaanu tuurin ayuu kala soo baxay Bitcoin-ka faylasheedii oo uu kombiyuutarkiisa cusub ku shubtay. Haddaba markuu faylashii Bitcoin kala baxay kombiyuutarkiisii hore ayuu intuu furfuray ayuu iibiyey. Laakiin hard diskihii buu la hadhay maadaama faylashii asalka iyo Bitcoin-ku ay ku jiraan si dhexdhexaad ah. Muddo kadib isagoo James gurigiisii nadiifinaya ayaa waxa uu arkay hard diskihiisii hore oo dhulka yaala. Isla markaana wuxuu is yidhaahday maxaad ka haysataa baalkan bilaa faa'iidada ama iska tuurtidba. Intuu soo qaaday gebigiisiiba ayuu dustbin-ka ku riday oo qashinka raaciyay. Isla maalintaasna qalad aad u weyn buu galay maadaama uu hard diskihiisii hore iska tuuray. Waayo muddo yar kadib 2013 dhammaadkeygii ayaa qiimihii Bitcoin-ku kor u kacay, wuxuu gaadhay heer ilaa iyo 6 milyan oo dollar. Markuu warkaa maqlayna waxa uu tegay kombiyuutarkiisii si uu u iibiyo qayb ka mid ah Bitcoin-kii uu haystay. Laakiin la yaabku waxa uu dhacay markii uu arkay faylashii Bitcoin-ka oo qaar ka maqan yihiin. Faylka maqanna magaciisa waxaa la odhan jiray Walt amba Shandad. Mar kale markii uu arkay musiibadaas ku dhacday ayaa si miyir la'aan intuu u dhaqaaqay ayuu tegay meelaha qashinka lagu ururiyo magaalada, isagoo rajo beelay oo welibana si rajo la'aan u raadinaya hard diskihiisii ka lumay. Raggii meesha ilaalinayana wuxuu u sheegay in wax aad u muhiim ah ay ka lumeen, iyaguna way ka naxeen oo iska sii daayeen oo iska raadsa bay ku dhahdeen. Laakiin nasiib daro ma uu helin maadaama ay ka soo wareegtay markii qashinka la qaaday ee uu hard diskihiisa tuuray 6 bilood. Muddo dhan baanu ku noqnoqonayay bartaas isagoo rajo beel ku raadinaya hard diskihiisii ka lumay, laakiin markii dambena waxba kama helin. Haddii imika la qiyaaso ninkaas lacagta keligii ka khasaartay maalintaas waxa ay noqonaysaa 135 milyan oo dollar. Hadda ma aha 135 oo dollar, waxa weeyaan 135 milyan oo dollar. Run ahaantii waa lacag aan dhaya lahayn, laakiin waxaanad calaf u lahayn cuni maysid. markana inoo kaxeeya xaggaas iyo Japan. Shirkad magaceega la yiraahdo Sihuko oo ku taala wadanka Japan kana shaqeysa arrimaha amniga ayaa waxa ay damacday in warmaha ganacsiga ay ka iibso dadka maalgashadayaasha ah. Isla markaana waxa suuqa soo galay in la iibinayo warmaha shirkadaas oo qofkii doonaya uu iibsan karo warmaha si uu share ugu yeesho shirkadaas. Laakiin qaladku waxa uu ka dhacay in qofkii qorayay warmaha iyo qiimahoodu uu isweydaariyay habkii qoraalka oo halkii uu ka qori lahaa halkii waranba waxa la siinayaa 610 yen ayaa waxa uu qoray 610kii waranba waxa la siinayaa 1 yen. taasina waxay ka dhigan tahay inuu qiimihii shirkadda 610 jeer uu hoos u dhigay. yanna haddaad fahmi weyday waxa weeyaan lacagta Japan laga isticmaalo. haddii uu Mareykanka iyo Ingiriiska kuwaas ay dollar isticmaalaan, Soomaaliduna ay shilin isticmaasho, Japan iyo dhankaasna waxa laga isticmaalaa yen lacagta la yiraahdo. adoo alxaasil muraad dad badan baa iibsaday warmihii shirkadda maadaama qiimaheegu aad u jaban yahay. shirkaddana khasaare aad weyn baa ka soo gaaray xaggaas. markii dambe ay ku baraarugeen ay yiraahdeen ka noqdo qaladkaasna suuragal bay noqon weyday oo iibkii baa dhacay baa lagu yiraahday shirkaddii. lacagtii shirkaddaasi khasaartayna waxa lagu qiyaasaa 233 milyan oo dollar. khasaaraha aad ka weynna wuxuu sababi gaaray inay shirkaddu baabaado, laakiin maadaama ay ahayd shirkadda labaad ee ugu weyn Japan aduu muddaha qaadatay laakiin way ka soo kabatay markii dambe dhaqaale burburka ku yimaaday. taariikhdu markay ahayd sanadkii 1998 wakaaladanaasi waxay u dirtay dayax gacmeed meeraha Mars iyaga oo doonaya inay ogaadaan xaaladda iyo waxyaabaha ka dhacaya meerahaas. aduu sanad kadib 23 September 1999 dayax gacmeedkii waxa uu gaaray meeraha Mars, laakiin cilad farsamo oo dhacday awgeed ayaa waxa go'ay xiriirkii u dhaxeeyay dayax gacmeedka iyo raggii maamulayay. si kadis ah ayuunbuu dayax gacmeedkii ugu daba qarsoomay meerihii mar keliyatana waa la waayay. waxaanu 16 sekin ka horeeyay waqtigii loogu talagalay inuu khadka ka baxo dayax gacmeedku. sidaas aanu kulmay dayax gacmeedkaas iyadoo ay ahayd lacagtii lagu sameeyay 193 milyan oo dollar. lacagtaasi hadday ahayd lacagtii dayax gacmeedka ku baxday si loo sameeyo, waxa kaloo ku baxay 134 milyan oo dollar keliyata si loo maamulo oo loo gaarsiiyo dayax gacmeedka meeraha kale. aduu guud ahaan marka la sugayay lacagtii ku khasaartay bartaas waxa lagu qiyaasaa 327 milyan oo dollar. aduu run ahaantii waa lacag aad u badan. waxaasoo lacagii khasaartayna qaladkii ka dambeeyay wuxuu ahaa inuu dayax gacmeedku wax u cabirayay amba masaafada uu cabirayay hab imperial tusaale ahaan pound iyo mil oo kale ayaa imperial kala yiraahdaa,
halka ay wakaaladanaasina ka isticmaalaysay hab mitrika, tusaale ahaan kilomitir, mitir, kuwaasoo kale isticmaalaysay. Markaa kala duwanaanshaha u dhexeeya hab cabiraadda uu isticmaalayay dayax gacmeedku iyo hab cabiraadda ay isticmaalaysay wakaaladanaasi ayaa keenay inuu khasaaraha intaa le'eg uu dhaco. Oo tusaale ahaan mar walba ay wakaaladdu u dirto dayax gacmeedka inuu 15 kiilomitir dhanka bidix u leexdo, isagu 15 mayl buu dhanka bidix u leexanayay, waayo waxaa kala duwan habka cabiraadda ee ay kala isticmaalayaan. Miilkuna kilomitirka in yar buu dheeryahay oo xogaa buu ka weyn yahay. mushkiladda weynna waxaa sababay waxa weeyaan qaladka basiidka ah ee dhacay. waayahay maanta xalqadeena xaggaas aynu ku joojin doonaa, waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena. fadlan haddii uu muuqaalku ka cajabiyey subscribe iyo like-ta ka ilaabin, una sheer gala asxaabtaada cidda aad doonaysa inay ka faa'iidaysato insha allahu tacaala. idinkana waxaan idinkaga tegi doonaa maanta salaanta islaamka, waxaanan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.